السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabnaa inaan tix gaaban oo Suldaan Farxaan Degmadu waan doonay inaan ka duubno ka record gareyno. Suldaan gabay maalin dhawaan ka maqlay oo aan ka waayay maxaan ku radaa social media oo dhanba platformyada kale ka disan oo haysa jirta. nimankaasi niman aad bartooda u sareysay ahayd in umada la wadaagana mudan. marka gabaygii maxaad ka haysaa dhowr casiyo ninkii kale magaca lahaa Cabdiboon gabayga Cabdiboon iyo Dhuuracis horta ninka la yiraahdo Cabdiboon baa gabayga la horeeyay marka balwada jaadka iyo waxaas uu diiday ninka marka wuxuu yiri inta rag xigtaa saaxiibana ahay qarnigii 8-meeyadii meelahaasna way joogeen marka labada nin laba nin oo gabay aad u yaqaan inkastoo Dhuuracis gabay cuslaa ayay ahaayeen marka Cabdiboon baa la horeeyay wuxuu yiri inta aad xashiishka iyo fadhida buushashka xamaalka sida nagal sida habar xamaamada intaad xariga soo hayso xigmad ka qasaara intaad xayn u marinayso sida nagal xubsaday intaad wax xagnaanayso intaad laba xaraalaha u tahay xoorta iyo dhayda xaafada caruurtu intay kugu dulxoomayso xog xumo daraadeed intaad geeska xoganayso xuseen jii sidiisii intaad u xumbuqyeynayso حسن كوشين بانهاي انت هذا حصل دوبيسو ولا لك حسوس قاي انت واحد حنتونيس حرارته انت اي شحات كو waxa kaarayso ku xoraya ixoor waa horaan ka xasuus go'ay inta waxa yiri marka Cabdiboon oo dhaqamadiisa oo dhan ka diidana qabiilkan uu sheegay iyo meelaha ku qayilay iyo waxa marka muxuu ku jawaabay marka Dhuuracis baa soo galay gabay uu aad u caraysnaa uu soo galay gabay adag marka wuxuu yiri Dhuuracis afan xaga la deeyay hadalkii waa inuu xumaada حقيقة waxaan dhab hadlay xubin ma aasan xaqiraadu saacada yar bay xog u gudubtaa qof weyn oo xisaabtama dib uu xagal ka daaca xalaal garan ahayn kiina qayxuma ku reebta daal baa ka xasila warkan xubin ku taagnay garashada xadka leegta lagu xirnaada hadii waxay suka xaafulaan waad xujurata ku xiran laba ma xagsada gamaan niman u baran xeelad iyo qaab ku xiran laba dhahay gabayga waa loo xidiyaa xor waxaad u tahay wali intuu xabadka ku yaal inta aan afkaaguna ku xumana ku keenin ayuun baad midkaad ku xirmay laga xishooda xeer bay murtidu leedahay ciidan xaadira xulka nabad gashaa jira wixii xoog ku weerara xukaamiya intii aan askari xoonka kugu reebin inta lagu xirin qodob murtida lagu xanaanay xeer maxkamadda yaala murtida inta ku qaban bulee ayaa sidoo ilaah ka xarimay laga xishooda hadka inay dhaxayaan cabaar laga xageeya sida xiire iyo colba laga xajeerta marka wuxuu meesha soo gelinayaa nin qodob baa sax jeebada afreer xeer ma caabiyo hadka adiga noocagu waa xoog wax u sheeg xarxara iyo jadal buu ku xabis qaata nin xanuujiya nabad ka hela jaahil xogsaday wuxuu soo gelinayaa meesha nin leeyahay dagax iyo waalane oo isu gabiyay hadda ka hor ayuu leeyahay ninba ninkii ka awood badnaa wuu maagayaa maanta marka wuxuu yiri xinka doqontu waa u dhiirantahay geesiga xagaagay ahayd dagax markii koorta loo xiray marka uu sidaada xaqiray xaakimka afdheer sidii dawlad weyn xeel dagaal ruux u xabagaystay waa Maxamed Guuleed garanaysa sidii dawlad weyn xeel dagaal ruux u xabagaystay hadka Maxamed Guuleed marka xugula soo doontay uu qaansa soo xootay oo leeb xun ku xanjeeray asna kula xarbiyay ruux madow qalab ka xaraana inuu xirajin galay waa ogaa ruux ka inuu xirajin galay waa ogaa ruux ka haya adigu gabaygu waa si dheera laba soo wada dhameyn karo laakiin waxa ku jirta inuu leeyahay dagax waa cararay waa baxsaday oo wuxuu sii mariyay dhul buu xil dibir iyo xagaas iyo wuxuu xirsi aad jirnimo laha awr xariirsaday marka ninka maloolan kala ma gabayga ka saaray bi'ada ka gixiyay marka gabayga saaray ninka leeyahay dagax kulli gabayga qaafiyadiisa martay dagax meelihiisa ma dhaafin laakiin bixitaankiisa laakiin dagax waa cararay buu leeyahay asaguna sidoo waxa loo jiray gabay oo tiriyay Allah u naxariistay فنان فلسفة أبوانا أولون ترى يم عبد القادر حرسي أو كجاه الله عبورت نيتشرك يو السؤال السوق ما عنقله السوق السويديني ونفس كل شوري كم قال الدور عن كرتو واحد جرام لنا السجر نيو قال يا هرت موضة هيو هذا كور مر بدي ويديس مركا قبل جاس أدو إن يربان كايا بلوجا أنت يلا أنا كورجينا كلنا عاون مركا يم وحسويديني horta anagu yaan ahay buu leeyahay anagu maaniga aan ahay horta anagu yaan ilaan dadkiiba waxay noqdeen isaaq iyo daarood iyo hawiye iyo waxbay kala sheeganayaan marka wuxuu leeyahay nimankii dhintay baan ahay anagu mise ninkaan nool taagan baan ahay horta anigu yaarahay anigu maanigaan ahay
ma ifkaan ku noolahay mise uunka hoose aboor loo hibeeyo aakhira jiraanahay ma addoon qof baan ahay mise ruux ilaahay bal aanayna ogaada ujeeddadu maxay tahay biyo laga abuurmayo ogayo laf iyo dir isu yimid haddaan nahay afka iyo el iyo gacan sanka ureeye iyo dhego shanta iyo arrimisa awoodooda waa maxay aragtiriyayaashii kuwa maqalka urushaaday ereya kaydshaan in lasii akhriyo mudan oorahda ku habboon afku muxuu diidaa had maan laxo abuurmaa dareen igugu fooshaa maskaxiba awooddeeda waxay ma bixisaa dadku iba salaxa sida igar lamaala imtixaanka waayaha dabeecadaha la ambaday aargudashadoodii iyo markay noloshu adag tahay awood lagu difaaca aadamuhu gaaray yaa bixiyey amarka adimada ka laabto ilayska cadceediiha arkina wixii jira qaaradaha adduunka ee oduhu dhex yaallaan mid waliba astaan leh soo ooga madowyada abo qaar ma wadan himbi marka wuxuu leeyahay carabta dadka dadkan wada carabta sheeganaya dad iska xignaa jira hawaan garta soo ooga madowyada aba qaar ma wadanin afrikadan madow iyo oromadan aan wadanaan mitan ilaa waan abu hashim gelayaa oboq iyo berbere iyo kuma ayl ka soo gaarka yabana abtirsiyo qoran oo intaan jiray ku sumanayay isirkayga keebaa taariikhda ka akhriyay mise mala awaal baan ku awoowasaga adigu inahaasa ka haya gabaygaas marka bal oran kara wuxuu kaga hadlay waa su'aal isagu isweydiiyo oo wuxuu su'aal galiyay jiritaankiisii saad gartay marka Suldaan Farxaan waa maasanta 100% reerkiisu meeshu ku abtirsanayay su'aal ayuu xataa su'aal galiyay oo yiri yaa yahuba yada jiritaanka horta anigu yaanahay isaga jiraalkiisii xataa su'aal buu u dul dhigay dhinac isku tiriyo uu garan waayo waxaana keenay talafaquuqii faraha badnaa ee dadka carabta sheegtay ee ka tegay kushitigii iyo dadkii la isku dhawaayo dhanka orday ee afrikaanka ka tegay Suldaan Farxaan buu kaasi oo aan jeclayn inaan maxaan ku raacay intaan ka record gareyn kana ka record garno xogaati xagabaya uu hayay oo isugu jira kuwo hore iyo kuwo dhexe marka Suldaan Farxaan dhigmadu aad u maasantahay 100%